munaasabadan xil wareejinta oo ay ka soo qayb galeen wasiirka qorsheynta iyo wasiirka xigeenka iyo agaasimihii hore la bedelay iyo agaasimihii u dhawaan madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyi uu soo magacaabay wasaaradda shaqaalaha wasaaradda iyo hay'adaha ay wada shaqeynta leeyihiin wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland madasha xil wareejinta ugu horeyn waxa ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Cabdi Wadaad oo madasha munaasabada xil wareejinta ka hadlay ayaa ka waramay wada shaqeyntii fiicneed ee ka dhaxaysay agaasimihii hore loo bedelay wasaaradda ganacsiga isla markaana uu agaasimaha cusub ku soo dhaweeyay qalbi furan iyo wada shaqeyn fiican agaasimihii hore wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Axmed Guuleed ayaa ka waramay waxyaabihii u qabsoomay muddada wasaaradda qorsheynta joogay oo sheegay inay ku dhowdahay muddo 4 sano iyo badha Mr. Hori waxaan ku wareejinayaa shaqaale tiriisu tahay 135 ayaan ku wareejinayaa waxaan ugu yimiday oo ilaa hadda ku soo kordhay marka tirada guud la eego 95 baa ku soo kordhay maalintii aan inday la imika gaadiidka waa 16 waxaan ugu yimiday 9 7 ayaa ku kordhay dhismuhu wuxuu ahaa dabaq ayuu ahaa markii aan yimiday hal dabaq iyo wax ku kordhay dhismahan imika labadan hoolay aan ku jirno iyo fooqa waxa kale oo kordhay gobolada ma ay lahayn xafiis goboladu ma ay lahayn maanta 5 xafiis oo qalabaysan ay goboladu leeyihiin kombiyuutarada yaala ee aan wasaaradda ugu yimiday marka kombiyuutaro printero waxa soo dhan la isku daro tiradoodu waxa weeyaan 40 ilaa 40 may dhaafeen maanta waxay marayaan 177 may marayaan maca gobolada intii aan joogay waxa la qabtay 7 sahan baa ugu yaraan la qabtay agaasimaha cusub ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland uu madaxweyne Axmed Silaanyi u magacaabay dhawaan Xasan Cumar Hori ayaa isaguna ka mahad celiyay magacaabista madaxweyne Axmed Silaanyi u magacaabay wasaaradda shaqaalaha ka cusubay inay si fiican ula shaqeeyaan sida ula shaqeyn jireen agaasimihii hore wasaaradda ilaahay waxaan ka bariyaa wanaaga iyo mas'uuliyadda uu igu tumay madaxweynuhu mid la mid ay iga filayaan madaxdeedan halka ugu yimid shaqaalahayguba alla inuu iga dhigo kii ehel u noqda alla inuu igu asturo alla inuu la garab galo ila tabantaabiyo waxayna ku suurtagelaysaa markaynu dhammaanteen wada shaqeyno dhammaanteen aynu gacmaha isqabsano Allah subhanahu wa ta'ala ayad quraan wuxuu ku leeyahay nabi maxamed baa la leeyahay qul nabi maxamed wuxuu ku tiraahdaa a'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuuluhu wal mu'miniin shaqadii waa la isfarayaa marka waxa lagu shaqada qabanaysid ilaahayna waa u jeedaa rasuulkuna marka uu noolaalahay wuu u jeedaa mu'miniintuna way u jeedaa geesta kale isagoo waxa madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland Ali Xuseen Ismaaciil Ali Shombe oo ka waramay sida fiican ay u wada shaqeeyeen muddadii koobnay ay wada joogeen Cabdirashiid Axmed Guuleed isla markaana tilmaamay inuu udub dhaxaad u ahaa wasaaradda oo waxyaabahan doonayay inaan ka comment gareeyo waxa kamid ah shaqaalaha wasaaradda isaga ugu soo horeyn jiray inta badan haddii aanu hawl ku maqnayn qofka ugu horeeyay yimaado wasaaraddu waxa Cabdirashiid marka muddada Cabdirashiid way shaqeynayna muddo yar oo kooban oo productive leh ay ahayd in marka waxaan doonayaa in xasanna sidaad Cabdirashiid ula shaqeyseen iyo si ka wanaagsan ula shaqeysaan wasaaraddeenu waa wasaaradda cid walba ku lug leh qorshaha dalku inagu inoo hoos yimaada haddii aanu team work wada shaqeynana waxa weeyaan waynu meel baynu gaari haddii kalena waxaynu iska noqon doonaa waxaan jirin oo aan ciidan ku xisaabtamin gabagabadiina wuxuu si rasmi ah ugu kala wareejiyay xilka labada agaasimayaal guud ee wasaaradda